hay-adda sirdoonka maxalliga u qaabilsan Israa'iil ee lagu magacaabo Shabak ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay tiro ka mid ah dad Israa'iiliyiin ah oo hub u waday dhinaca Falastiiniyiinta si ay gacanta ugu galiyaan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniga ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah dhulkaasi ee gobonnimada u geylamaya. war ka soo baxay hay-addaasi oo amniga iyo sirdoonka gudaha qaabilsan ayaa waxa ay tilmaameen in tallaabadan ay ka dambeeyeen dad Israa'iiliyiin ah kuwaas oo dhaqaale laga soo diray helay dhinaca iyo wadanka Turkiga asaatee ilaa iyo hadda dowladda Ankara kama jawaabin eedda ka timid dhinaca Israa'iil. telefishinka Sky News ayaa waxa uu leeyahay waxa la shaaciyay maanta in hay-adda ammaanka gudaha Israa'iil ee Shabak ay burburisay shabakad ay ku eedeeyeen inay ku lug lahayd kala weydaarinta hub iyo lacago badan oo loo gudbinayo daanta galbeed iyadoo la sheegay in lacaga ay hubkaasi ay ugu dambeyn gaari lahaayeen dhaqdhaqaaqa hubeysan ee wadaniga ah ee Xamaas. war-saxaafadeed uu Shabak soo saaray waxa sidoo kale lagu sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay la xiray dhowr qof oo Israa'iiliyiin ah kuwaasi oo ka soo jeeda magaalooyinka Kafar Qaasim iyo Raahad kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay ka shaqeynayeen howlgallo qarsoodi ah oo ku saabsan wareejinta hubka iyo lacagahaasi laga keenay dhinacaasi ee wadanka Turkiga. Shabak ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan howlahan ay ka wadeen baa layidhi wakiilo ka shaqeeya oo Xamaas oo degan dhulka Turkiga kana soo jeeda baa layidhi halkaasi daanta galbeed kuwaas oo isticmaalayay xiriirka qoysaskooda daanta iyo waliba kuwa ay la leeyihiin bulshada Israa'iiliyiinta ah sida ay ku warantay shabakadan. sida la sheegay warbixintana lagu qoray lacagaha waxaa la soo mariyay hanaanka digitalka ah ee cryptocurrency loo yaqaano waxaana laga soo gudbiyay dhinaca iyo dalka Turkiga kadibna waxaa loo rogay lacaga cadaan ah iyadoo la maray sariflayaal maxalli ah oo Israa'iili ah. waxaa la sheegay in lacagtan loo adeegsaday iibinta hubka laga iibsaday ganacsato ka ganacsata hubka oo Israa'iiliyiin ah ka hor inta aan loo gudbin daanta galbeed sida ay ku doodeenba hay-addan. Shabak waxay intaa ku dartay in eedeymo rasmi ah loo jeedin doono dhammaan dhinacyadan kala duwan ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta isugu jira oo ahayd bay yiraahdeen shabakad maleegan oo si weyn uga shaqeynaysay arrimahan kala iibinta hubka iyo kala wareejintoodaba ku saabsan. dhinaca kale wasiirka amuraha gaashaandhigga Israa'iil ee Katz lagu magacaabo ayaa ku dhawaaqay in ay suuragal tahay in aanay jirin wax wada hadal nabadeed oo lala galayo dowladda Dimashq fadhisa ee uu hogaamiye Axmed Sharac waa Siiriya. arrintan ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay Israa'iil dareemayso qatar weyn oo dhinaca nolosha ah kadib markii halkaasi ay soo galeen dhinacyo kala duwan oo hubeysan oo ka tirsan baa layidhi kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen. sida uu qorayo telefishinka Al-Arabi wasiirkan gaashaandhigga Israa'iil Katz lagu magacaabo ayaa sheegay in aysan jirin wadan nabadeed oo la xiriirta Syria oo galaysa samarkaana lagu doodayo baa layidhi in ciidamada ku sugan gudaha Syria ee Israa'iiliyiinta ay fariisina ka samaysanayaan qalcado iyo dhul buuraleeya oo ay Golan ka mid tahay halkaas oo ay in muddo joogeen si ay u diyaariyaan suurtagalnimada weeraro ay ka jawaabaan oo dhinaca Israa'iil lagu qaadi karayo. hadalkan ayaa Katz waxa uu ka jeediyay kulanka guddiga amuraha dibadda iyo amniga ee Knesset waa baarlamaanka Israa'iil sida ay baahisay idaacadda ciidamada militarigu. waxa uu shaaciyeen ciidamada ay ku jiraan waa dhinaca Syria ee kooxda Xuutiyiinta ee Yemen halisna weyn ay ku yihiin amniga Israa'iiliyiinta sida uu hadalka u dhigay. Katz ayaa intaa ku daray in Israa'iil ay tixgelinayso suurtagalnimada duulaan ka iman karaya dhinaca Syria isla markaana loo baahan yahay in feejignaan dhammaystiran la bixiyo isagoo sheegay in qorshayaasha difaaca ee xuduudaha waqooyi ay arrintani aad ugu howlan yihiin oo ay ka shaqeynayaan. mar kale ayaa miiska waxa uu soo saaray arrinta duruusta Syria waxa uu yidhi walaacaynu ka muujinaynaa inay qatar ku jiraan. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay ka walaacsan tahay xaaladda dadka duruusta ah ku nool Syria waxana uu ku hanjabay
in haddii ay sii socdaan weeraradu ay dhici karaan in qaybo badan oo daruusa dhibaato la gaarsiiyo militariga Israa'iilna ay ku qasban yihiin in ay saameyn qaadaan oo ay tallaabooyin degdeg ah bixiyaan. warbixintani waxay muujisay in Israa'iil marar badan ay u adeegsato xiriirka kooxda ka tirsan daruusiga inay faragelinayaan gudaha Syria, waxayna intaa ku darayaan in khilaafku ay sii horinayaan ay tahay mid xoogan. dhinaca kale marka la fiiriyo tallaabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladaha Turkiga iyo Ruushku ay si weyn uga soo horjeedaan tallaabooyinka ciidamada Israa'iil ee gudaha wadanka Syria, waxaana arrimahan oo dhan ay muujinayaan walaaca sii kordhaya ee gobolkaasi iyo waliba walwalka xoogan ee laga qabo halkaasi inay ku dagaalamaan dowladaha waaweyn ee ku nool gobolkaasi bariga dhexe. dowladda Turkiga ayaa dhawaan soo saartay in aanay marnaba aqbali doonin in ay aqbasho amaba ay meel mariso in ciidamada Israa'iil ay abuuraan tallaabooyin saameyn ku yeelan kara amniga qowmiga ah ee dalka Turkiga iyagoo dhaxmaraya gudaha wadanka Syria. militariga afgambiga kula wareegay wadanka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea-Bissau ee saboolka ayaa maanta ku dhawaaqay in mid ka mid ah generaalada ugu sarreeya ciidanka uu la wareegayo muddo hal sano ah talada si kumeel gaar ah, waxaana sidoo kale uu hogaamin doonaa qaybaha sare ee ciidamada oo isaga si toos ah u hoos tagi doona. dhinaca kale urur goboleedka dhaqaalaha galbeedka qaaradan ee ECOWAS lagu magacaabo ayaa waxa ay ku tilmaameen tan inay abuurayso marxalad walaaceeda leh oo halis ku noqonaysa jiritaanka guud ahaanba gobolkan iyo waliba saameynta nolosha oo sii adkaan karaysa. militariga afgambiga ku sameeya dalka Guinea-Bissau ayaa ku dhawaaqay magacaabista General Hata Nitam in uu noqdo madaxweynaha kumeel gaarka ah iyo hogaamiyaha taliska sare ee militariga muddo hal sanadood oo lagu diyaarinayo doorasho maxalli ah. ku dhawaaqista ayaa lagu sameeyay shir jaraa'id oo lagu qabtay Khamiistii xaro weyn oo militarigu ay degan yihiin, halkaasi oo General Nitam uu ku cadeeyay inuu qaaday xilkaasi hogaaminta kadib markii uu ku dhaartay xarunta taliska guud ee ciidamada, waxaana la sheegay in goobta si weyn loo adkeeyay ammaankeeda oo haatan si weyn indhaha loogu hayo. militariga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dib loo furay dhammaan xuduudaha qarankaasi sida uu sheegay General Lassana Manzali oo ah kormeeraha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadankaasi Guinea-Bissau. afgambigan ayaa dhacay 3 maalmood kadib markii la shaaciyay natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka wadankaasi. axadii la soo dhaafanaa si weyn looga hadlayo guud ahaanba wadankaasi. arrintani waxay la kulmaysaa cambaareyn kala duwan tallaabooyinka militariga Guinea-Bissau ay qaadeen. ururka dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS lagu magacaabo ayaa si kulul u cambaareeyay afgambiga iyagoo ku tilmaamay ku tumasho dastuur oo halis ku ah in lagu shaqeeyo nidaamka qarankaasi heshiiska lagu yahay iyo qatar weyn oo ku wajahan xasiloonida dalka iyo gobolka oo dhan sida ay ku dhawaaqeen madaxda urur goboleedka ECOWAS oo hadda u muuqanaya in uu si kala furfurmayo. Guinea-Bissau ayaa muddo dheer la daalaa-dhacaysay kala qaybsanaan siyaasadeed iyo rabshado ku dhisan mustaqbalka natiijooyinka doorashadii 2019 waxay horseeday buuq iyo muran socday dhowr bilood kadib markii labada musharax ee tartanka ugu sarreeyay ay ku dhawaaqeen mid walbaba inuu si gaar ah u guuleystay. dalka Guinea-Bissau waxaa loo arkaa inuu ka mid yahay wadamada ugu saboolsan caalamka, ku dhawaad 40% shacabkaasi waxay ku nool yihiin xaddiga ugu hooseeya ee saboolnimada, waxaana sanadihii la soo dhaafay dalkaasi kordhaya ka ganacsiga daroogada loo kala gooshiyo koonfurta Amerika iyo Yurub, iyadoo ay fursadan bixisay baa layidhi xiisadaha siyaasadeed ee aan wanaagsanayn ee sii kordhaya ee wadanka Guinea-Bissau ka taagan. dhinaca kale wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Masar Dr. Bakri Cabdilcaadi ayaa la kulmay mas-uul sare oo ka socota hay-ad midowga Yurub, waxaana ay ka wada hadleen sidii dib loogu unki lahaa kaabayaasha dhaqaalaha magaalada Gaza oo muddo dheer burbursanaa isla markaana dib loogu yabyabi lahaa nabadda. telefishinka Sky News ee Imaaraadka waxa uu leeyahay wasiirka qaarijiga ah ee wadankaasi
masar batri cabdilcaadi ayaa magaalada qaahiro kula kulmay xaaji ali xabiib oo ah gudoomiyaha midowga Yurub u qaabilsan maareynta musiibooyinka iyagoo la wadaagay ka hadalka xaaladda gobolka iyo xiriirka ka dhaxeeya labada dhinac. inta lagu guda jiray kulanka wasiirka Masar wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda dib u dhiska kaabayaasha muhiimka ah ee Gaza iyo waliba burburinta dagaaladu ay burburiyeen Baaliiri iyadoo la xaqiijiyay gargaarka bini'aadanimada guud ahaan loo baahan yahay in loo fasaxo shacabka halkaasi ku nool. dowladda Masar ayaa dadaal xoog leh uga jirta sidii dib loogu abuuri lahaa nolosha magaalada Gaza isla markaana loo joojin lahaa colaadaha muddada dheer ka taagnaa goobtaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen oo 70,000 oo qof ku dhow halka ku dhawaad 200,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. arrimani waxay ku soo aadayaan xilli shacabka ku nool qaybo kala duwan oo kamid ah magaalada Gaza ay haatan door bidayaan in ay helaan nolol halka Masarna ay ka baqanayso dadkaasi in loo soo tallaabiyo dhinaca xuduudda Siinaa waa sida Israel ay muddo dheer raadinaysay.